masalada labaad laakiin halkan lagu soo daray ee culimada iyagii baa kala hadiraan la yiraahdo su'aashan khalad way culimadu isma dhahaane nin baa dhaha culimada halalay xasan la yiraahdo xasan baa culimada halalay yiraahdo laakiin ninka kale ii sheegay yiri culimada Soomaaliyeed halalay dhigooda waa xalaal ii sheega waayo ana wax nin uu galay iyo dambi uu nin leeyahay dadka lagama dhaxaysiyo lama wada saaro qadiyadaasi Sheekh Xasan bay khaas ku tahay isaga weeye culimada Soomaaliyeed oo dhan ninka dhigooda banaystay xalaalaystay isaga weeye oo cadi oo ku faanay qaarna la laayay fatwadiisi lagu laayay in jidka ay ku jiraan Sheekh Xasan weeye cid kale oo la wadaagta anu ma garanayo culimada Soomaaliyeed ee kale qof radiyay waa khaldan yahay waa tabdiic hadalka bidca weeye mubtadic weeye waa arkay wayna badanta wayna jirtay wayna jiri doontaa laakiin nin waliba xataa tacmiimiyo la yiraahdo dantu waxay ku jirtaa culimada Soomaaliyeed oo dhan nag in laga dhigo isaga arkay maqal iyo muuqaal buuna ku duubayo hada waxana maaha wax laga sheegayana maaha wuxuu qalina ku qoray oo buu ku qoray cod maqal iyo muuqaalna uu ku duubay way waxaana ka dambeysay culimada Soomaaliyeed inay wada gaalayihiin baa ka dambeysay maalin meel waxay soo socotaba inay wada gaalayihiin baa ka dambeysay marka xuduudda hadalkii horena inay mas'alada xuduud iyo jawaabaha laga bixiyay daba socota waa u maleynaya wax badan oo Xasan sheegay baatil ay waajib tahay in la radiyo way waa baatil ay waajib tahay in la radiyo wax badan oo diinta iyo dadkaana waa cadow saa'il ah oo in laga difaaco ay waajib diina tahay waana nin inxiraafay oo madhabul khawarij qaatay oo umada in looga digay ay waajib diina tahay inta waxa dheer waa nin ka been sheega diinta iyo culimada wax uu ka soo guuriyo umada in looga diga beentiisa ay tahay way waajib intaas oo dhan waa marxaati madoon intu waa marxaati madoon waxaan qarinayno hadda aan leexinayno gabinaynana maaha sadarteed codna waa ku maqasheen qoraal waa ku aragteen ninkaasi ala madhabil khawarij way dhiiga iyo diinta ummadana banaystay waana nin si kas ah oo bareer ah oo indhaadayga oo waana diid ah culimada waxa uu ka soo guuriyo been uga sheega way marka Nairobi ku noqdo waxaan u balansanahay 30 qowl oo culimada oo 30 kaba uu ka been sheegay inaan project ku qabto soo bandhigo balanaan qaaday way intaanan soo bixino laga yaabo idin soo gaari doontaa 3 sano ka hor baanan bilownay inaan kala hadalno niraano fahamkaaga aan isku khilaafno laakiin waxa culimada ka soo guuraysa ha ka been sheegi hadal dhaxda laga daro mid la isdaba mariyo mid la googooyo mid la isku kabo waan inaad moodayso inuu harqaan la joogo halkaanka markuu dharka tolayo marada intuu jarjaro soo rabo u kabkaba waxaan keeni doonaa intaas oo qowl oo hadal uu isagu leeyahay oo dhaxda kaga daray hadal la kitaab kala go'an inta laga soo guuriyay la isku kabkabay oo la isku tolay 500 page ka soo gooyin page ka boqolaadna in ka soo goo ka 200 la in ka goo sadar dhaxdi hal hadal isaga dhig dhaqan iyo caado uu diin ka dhigtay way annaga waxaan qabnaa waxaasi biijmaaci ahli ilmi kadib iyo fisq way ولذلك waxaan qabnaa inuusan marxaati gelin inuusan shaahid noqon karin sharcan waana cadeyn doonaayo mas'aladaas waa ballan aan qaadayo insha Allah ta'ala ba'da al-eid mas'aladan waan faahfaahin doonaa inta waxa dheer Xasan isaga in la badbaadiyo u baahan dad kale maaha madhabkiisa isaga diintiisa iyo dhiigiisa in laga badbaadiyo u baahan madhab Xasan madhabkiisa kaayaga maaha suuragal maaha muslim inuu noqdo ala madhabi isaga madhabkiisa hadii lagu dabaqo inuu muslim noqdo suuragal maaha waa mustaxiil hal tusaalaan insiin wuxuu yiri cidii tiri haday dan muslimiin ku jirto baarlamaanada waa la geli karaa waa gaal niman ictisaam leeyahay ku gaalay anu ictisaami xiri ictisaamku waa gaalo waxay ku gaaloobeen waxay dhaheen baarlamaanada haday dan muslim laga xaqiijinayo waa la geli karaa طيب بالصوت والصوره فيديو isagu uu duubay oo waxa yaala hadii dan muslim laga hirgelinayo baarlamaanada waa la geli karaa oo gala u leeyahay xiri baarlamaanada
haddii dan muslim laga hirgelinayo ha la galo waad ku qasban tihiin gaalnimana ma aha isagoo lehna way taal isagoo leh sidaa qofkii yidhaahdaa waa gaal la way taal markii la yidhi warxaaji waxaa dadka ku gaalaysay adigiina samaysay haye adigana dee kaarkaysu dhib baasha qorta waa isu casaysay haddii la jiifiyaana bannaan ayn ahayn diin tahay waa yimidoo wuxuu yidhi iyaga horta markuu ka hadlayay ictisaamka laba meelood buu wuxuu ku yidhi ictisaam wixii waxaa geliyey aqoon yari wey qiraa'o fiican iyo aqoon fiicanna baabul kufri wal iimaan uma laha mar labaadna wuxuu yidhi nimanka ictisaam la yidhaahdo way aqoon yar yihiin waana cajab ay bay u joogtaa buu yidhi video wey hadago ma ahan ka hadlaya cod iyo meel baa ka soo qoraya maaha waa video wuxuu ku hadlaya uu soo galo wuxuu yidhi qofku jaahil hadduu yahay ka waran wuxuu yidhi annaga mawaanicda maanic aljahli wa maanic altawiil wa maanic mabay ictibaarin maanic ninkii sabab ku dhaca waa noo gaal طيب انت صومها عذر دار جهل ما لها يجي ها اسقي مركي لير دادنا waa tiriya baasha de si fiican kaarkay isugu dhig wuxuu yiri may aniga jaahil aanaha adiga hadda طيب انت صومها عذر دار جهل ما لها يجي ها اسقي مركي لير دادنا waa tiriya baasha de si fiican kaarkay isugu dhig wuxuu yiri may aniga jaahil aanaha adiga hadda jaahil عذر دار ma aha laha bisawt wa suura sooma may jahliga kala labo de la jiifiyana banaan la joojiyana banaan la jiifiyana banaan la joojiyana banaan wuxuu yiri ninkii yiraahda qaanuun ogolaada qalinka ogolaada waa gaaloobaya kibaadana waa qaatay kibaadada Kenya dastuurkeeda waxa ku qoran warqada aad saxiixayso inaad qaanuunka raacayso oo ixtiraamayso oo u hoggaansamayso oo ka qayb qaadanayso fulintiisa dadka kale waa ku gaalooban laakiin isaga kuma gaaloobamiya waataan idin leeyahay isaga u baahan diintiisa iyo dhiigiisa in madhabkiisa laga badbaadiyo u baahan yahay isaga in qaadinayo gurmad u baahan marka ruduudan la radinayo war wax kala ma aha isaga idan ugu jirtaa marka laga soo tago ummadda dhiigeeda iyo diinteeda in laga difaacay ay tahay oo cadow saa'il oo yahay mu'tadiya markii taa laga soo tago isaga naftiisa in laga inqaadiyo u baahan wuxuu u baahan yahay baan abuurkan in laga badbaadiyo wuxuu u baahan yahay isgaalaynta in laga badbaadiyo wuxuu u baahan yahay dhiigiisa uu isxalaaleynaya in laga badbaadiyo kuwa madhabkiisa u fatwooday intuu dadka dhiigooda ku baneynayay buu sameynaya intuu dadka ku gaalayna waa sameynaya laakiin ma garanaya aniga sababta ma usul laakiin haddaan xusnu dhanni sameeyo usuusha qawaacid cilmiga iyo tabaawul kufri wal iimaan baan u fadhiin uma fadhido akhris badan baan akhriyay iyo waxaan waana qaraka laba qadiyadood aan ku soo gabagabeeyay talabatul cilmiga iyo dadku laba qadiyadood ayaa la isku qasin ninkan fanniga cilmigan waa laqbay yaqaana iyo maadada uu yaqaana kala laba way fannigan waan laqbay karaa kutubtiisana waan akhriyaa iyo fanniga cilmigan waan aqaana kala laba way nin waxa jira kutubta xadiidka laqbay kara laakiin xadiidana aqoon nin baa kutubta mustalaha laqbay laakiin mustalahan aqoon nin baa kutubta usulul fiqh laqbay ana aqoon maxaa lagu gartaa masaladaad ka hadlayso cilmiga waa silsilad isku xiran masaladan aad joogto maanta mid horena xiriir bay la leedahay mid soo socotana xiriir bay la leedahay ninka fanniga yaqaanay masalada uu joogo inta baabay faraceed iyo lugteeda gasha waa yaqaan sadarta markuu ka hadlayo abwaabtii kale oo dhan buu tixgelinaya ninkaan aqoon laakiin hadba baabka iyo kitaabka uu laqbaynayo jooga sibuu wuxuu jeexi baab kale markuu tago wuxuu soo jeexay mooga wuxuu ka soo hadlay ee uu soo sharxayay sharxa meeshuu la maray ma garanayo waayo rawaabita abwaabta ka dhaxaysiya funuunta culumta isgalaan ma garanayo laakiin carabiga waa yaqaana waana soo laqbaystay boqolaal waxa taqaanaan fiqhiga laqbayaan laakiin fuqaha aan ahayn soo ma jiraan kuwa tafsiirka laqbayoon mufassiriin ahayn baa jira kuwa xadiitha laqbayoon muhaddithiin ahayn baa jira culumta waan laqbeeyay waana aqaana ma mid labaadna wax badan baan akhriyay wax badan baan aqaana ma waxa laga yaabaa 30 kitaab inaad akhrido laakiin aynan aadan dhuuxin aadan garanaynin usuush nin hadda laba nin oo nool qadaan sheega rag baa garanay sheegi maay nin baa wuxuu akhriyay kitaab la al muwaafaqat fi usul ash-shari'a imam shaatibi uu leeyahay
maqaasidu shariicu ka hadla 4 mujallada waaweyn way afartii markuu dhameeyay isaga iga sheekay laftiisa baa waxaan taan fariistaan iyo talo maxaad ka fahantay waxaan ka fahmaan garan waayay waa ku celiyay waan akhriyay waan fariistay maxaad ka fahantay waxba nin buu u yimid waa qoon biday wuxuu niyo kitaabka 2 jeer baan akhriyay aad xoogama fahmin maxaa dhacay mustawaheedan gaarin kitaab mustawaha ka sareeya dareerisay ana maanta oo dhan kutubtan haddaan tasafuxoon aqriyo ususka cilmiga iyo qawaacida cilmiga ee hagaysa ee sax iyo khalad ka miisaamaysan aanay ii fadhiin wax badan waan akhriyi karaa laakiin macnaheedu wax badan aan aqaan maaha waxa lidalika kathratu alqiraa'ah laysa daliilan ala kathrati almacrifa in badan baan akhriyay in badan baan aqaan maaha cilmiga waan akhriyayna waan aqaan maaha inaga mushkiladina haysata ninkii fannigan laqbeeyaba inuu yaqaanay moodayaan ninba usul fiqh akhri baa kitaabka bilowgiis iyo dhaxdiisa iyo aakhirkiisa dad cajaladiisa dhageysato kulluhu iqtiraab iyo tanaaqud way sababtoo usuusha iyo madaakhisha iyo furuucda baabkan ma fahansana kitaabkan uu akhriyo masaa'il buu mari kitaab ka masaa'il duwan oo ra'yiga kaga duwan buu akhri kaana suu yahay buu mari ma yaqaan labadan kitaab inay iskhilaafsan yihiin waxay ka hadlayaan tanna kan kitaabku joogo had barajaxa kitaabku la joogo buu rajaxa fiqhi buu akhri qawaacid la isku hayo masaa'il badaan galayaan baa jiro baab kala duwan ma yaqaan maanta kan uu jooga qaacidadii ninkan saas uu qaba saas uu rajixi nin qaacidadii si kale oo qaba kitaabku si ma soo rajaxay uu rajixi fatwadiisu qaadan dad badan baa kutubta akhriya oo aqoonin funuunta dad badan baa wax badan akhriya oo wax badan garanayn marka ha u qaadanin haddii wax badan buu qofkan akhriyay la yiraahdo ama uu la qabeeyay inuu wax badan yaqaan ha u qaadan warka gunaanadkiisu culimadu inay isradiyaan oo xaq la cadeeyo oo la isnaqdiyay adabkeeda la ilaaliyana adabka ilaalinta iyagay waajib ku tahay adiga iyo inaga waxa inoo taal waxa nuxurkiyo faayada aan qaadano tan qaybta kale dilkana cidda dhiiga culimada banaysatay waa xasan kaliya cid kale la wadaagta maarag tawaifta kala duwan inta la isradiyo wax dhiig banaystaan ugu maarag baa ku kali waana ummadi dadkii uu diintoodii iyo dhiigoodana cadow saa'il oo in laga qabta ay waajib tahay way isagana in qaadin buu u baahan yahay hadduu sidaa ku socdoon ilaahay ka in qaadininna isaga dhiigiisa isbanaysan doona mar baan ka hadli doonaa iyadana ballan qaaday silsilad la yiraahdo xasaan yukafiru xasaan حسان على أصول مذهبه مستحيل إنه مسلم نقضه على أصولنا ما قالوا لكن على أصوله المسلم إنه نقضه مستحيل وما دعكرته وإلا الدلتي فيانا بنا لتشوشيانا بنا ويو هذه كانوا ويكو قواطعنا ما قواطوا سبحان الله توفيق